alla maanta ayaata iyo ciida wanaagsan alla maanta ayaata iyo ciida wanaagsan ilaahina siiyey daawada ku soo dhawow halka aan ku suganahay waa beerta xayaat ee marka dalxiiska loogu talagalay beertan ma aha mid aan halkan ku soo koobi karo sidaad arkaysaan waxaan rabaa marka intaanan warka idin gelin ama waxa aan idin sheegay aysan noqonin xayeysiin iraaca oo ila soo arka waxa idin sheegay inay wax jira yihiin ina kalante walaal naken hadda waxaan rabaa inaan idin tuso partitionka ugu horeeya ee marka loogu talagalay dadka waaweyn iyo marka lamaanaha ama dadka marka dalxiiska ah sida fadhiyada kala duwan iyo sida beerta gudaheeda tahay qaybtan waa qaybta ugu horeysa ee aan hadda idin tusi doono ila socda waa kan albaabka laga galayo ugu horeyntii meesha aan joogo waa labada partition meesha u qaybiso dhankan waa qayb sidaad arkaysaan oo loogu talagalay in lagu nasto ama marka dadkii raba inay sawiro ku galaan iyo design hadda tadan u jeedaan waa hoolaha ka socoto dad baa isku sawiraya sidaad arkaysaan qaybtan kale haddii aan ku tilmaamo waxay leedahay fadhiyadan kala duwan marka designada kala nooc ah quruxda badan u jeedaan mudulka quruxda badan iyo rooga quruxda badan oo fidsan oo u jeedaan rooga ooska weli waxaan ku dhex jiraa beertii gudaheeda qaybteeda koobaad qaybtan waa qaybtii hore aan idinku sheegay waa qaybtii markaas qaybtan kale ku dhaganeed waa inta waxay ka kooban tahay waa hal block oo u qaybsamo 4 partition party 1 party 2 ilaa party 3 iyo party 4 derbiyada idin muuqdo waxa loogu talagalay background picture ama macnaha in lagu galo sawirada markaas oo dalxiiska ama dadka yimaada beertan ay ku dalxiisayaan oo markaa sawirada iskaga qaadayaan qaybo waxay leedahay cafeteria oo markaa si aad ah loo qurxiyay oo markaa ku fiican in markii kafeega aad cabayso ama markaa ku bishinka cabayso ama cabitaanada kala nooca markaad cabaysid in si caadi aad ugu nasan karto bal nakeen aan ku tusay iyagana si aad u aragto qaybta ay idin sheegay waatan qaybta oo cafeteria waxa laga soo galaa sidaad arkaysaan albaabkii haday aan ka soo galeynay afartaas partition ama meelaha marka lagu nasto ama marka sawirada la iskaga qaaday ahayd qaybtan waa qaybta cafeteria iyo cabitaanada iyo marka dalxiisyada ay ku nasan karaan waa u jeedaan hal meel oo kaliya ma aha waa dhowr qayb intan waa dhowr qayb waxa inoo sii dhiman qaybtii ilmaha ay ku baashaalayeen oo dhowr kala nooc ah sida muuqaalka hore ugu soo aragteen صباح نكنا halkani waa wadadii ku aan ka soo baxay ganjaalka laga soo galo afaafka hore ee marka beerta xayaat qaybtaas waa qaybtii hore aan idinku sharaxay qaybtan waa qaybta hadda aan ka soo baxay qaybtaas waa qaybtii hore aan idinku sharaxay qaybtan waa qaybta hadda aan ka soo baxay halkan haddii la sii fiiriyana waa wadadii marka ganjaalka kale kuga xiraysay qaybahaas waa qaybihii ticketka iyo waxyaabaha laga goosan lahaa oo marka gudaha u soo gashid waxaan rabaa inaan idin tuso qaybta oo hadda aan ka sheekeynayo ee cafeteria qaybteeda fadhiga sida arkaysaan waa kan waxay leedahay miisas qurux badan oo loogu talagalay markaas inay dadka markay caweynayaan ama ay baashaalayaan ay ku baashaalaan cabitaanadoodii
waxyaabihii markaas ay dalbadaan loo soo dhigo kuraastii waatan weli meesha macnaha ma dhamaystirna oo waxa ku socdo dhismo qaybtana hadda soo baxday qaybtii caruurta waa ka hawshoodii waa socotaa waxa waaye meel ما شاء الله oo marka dan ugu jirto hadii noqon lahayd reer ceelasha iyo reer afgooye ay wax badan ka faa'iidi karaan sababtoo ah markii hore dalxiiska waxay u aadi jireen in marka ay noqoto muqdisho iyo meelahaas sida jasiiro waxay tagi jireen liido waxay tagi jireen meelaha iyo daar salaam hadda waa loo soo dhaweeyay waxa laga furay ceelasha iyo xamar inta u dhaxayso waa agagaarka siinka dheer daawadayaashayga qaaliga ah mar walba waxaan jeclahay wixii cusub inaan idin la soo socodsiiyo ama aan idin soo bandhigo sidaad aniga ii jeceshahiin si lamid ah aan idinkan idin jeclahay mar walban waxaan jeclahay wixii markaas abdayd ama markaas cusub inaan markaa idin soo bandhigo maadaama beertan ay beer dalxiis tahay beerta xayaad ay ku taal siinka dheer waxaan isdhahay asxaabtaada ama tiimkaaga dad ka mid ah way joogaan qaarkood Soomaaliya ama qaasatan degmada afgooye ama qaasatan gobolka banaadir intaba inay ka faa'iideystaan hadii ay u baahdaan beer ay ciidii markaa ku dalxiisaan ama maalmaha jimcaha ama maalmaha kale inta xilliga oo fursad u leeyahay beertan waa beer cusub waxaana gacmo furan kugu soo dhaweynayo shaqaale markaa u dhaga fudud sidii customerkooda markaa ay u farxad gali lahaayeen waxaan idin leenahay mar walba wixii cusub waxaad ka daawanaysaan channelka Afgooye Media Show aadan ugu mahadsantiin sidaad mar walba muuqaalka aan soo gelino sida adiga ii daawanaysid aad markaa noo dhiirigelisaan ama markaa barnaamijkan soo gelina aad like u saartaan waxaan aniga rabaa in aad na gaarsiisaan meelaha channelada ugu sareeya ee gaarsiiseen ama aad na dhaafsiisaan si aad markaas anagana aan ula qaybsano asxaabteena ama dadka kale ee youtuberada ah ee nagu loodka ah aan wax ula wadaagno waxaan idinka codsanahay oo kaleente maadaama bishii Ramadaan ay aakhir tahay oo maalin kaliya ay naga xigto maalinta ciida hadduu Ilaahay nafta noo daayo oo Ilaahay ma uusan dhihin ina Ilaahay Ramadaankii iyo markaa ajraadkiisa Ilaahay uu naga aqbalo oo Ilaahay markaa kuwii loo dambi dhaafo jannada loogu bishaaray Ilaahay uu naga dhigo oo aan ciidana si farxad iyo bashbash iyo barwaaqo leh aan ugu ciidno waxaan idin leenahay anigoo Ibrahim Cumar assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh
mahadsanid waqtiga aad nasiisay channelka Afgoye Media Show sida aad u daawatay waad ku mahadsan tahay